baduhu waxay daboolaan 70% oogada sare ee dhulka. Waxay soo saaraan 50% oksijiinta aan neefsanno. Waxay ka qayb qaataan yareynta neefta sunta ah ee aan soo celino ee carbon dioxide. Haddaba ka waran, haddii gebi ahaan la waayo biyaha badaha, maxaa ku dhici lahaa dunida iyo noolaha ku dul nool? haddaba daawade dhamayso muuqaalkan si aad u ogaato. baduhu waxay u taagan yihiin 97% ilaha laga helo biyaha. sidaa awgeed waxay qayb weyn ka qaataan dheelitirka cimilada guud ee dunida, iyagoo inta badan nuuga kulaylka falaaraha cadceedda kadibna si isla ugu qaybiya qaybaha kala duwan ee dunida, taasoo ka hortagaysa in meelaha qaar ay noqdaan kulayl ama qabow xad dhaaf ah. sidoo kale umibaxa ay sameeyaan biyaha baduhu waxay ka qayb qaataan wareegga biyaha macaan, iyadoo marka ay hawada tagaan isku bedela daruur dibna ugu soo daa dhulka. sidoo kale sidaan soo sheegnay hore, waxay soo saaraan 50% oksijiinta aan neefsanno, iyadoo sidoo kale yareeya ama nuuga neefta sunta ah ee carbon dioxide-ka. haddaba maxaa dhici lahaa haddii la waayo biyaha badaha? ugu horreyn, waxaa meesha ka bixi lahaa doorkii ugu weynaa ay ka qaadanayeen dheelitirka cimilada guud ee dunida, iyadoo meelaha qaar ay noqon lahaayeen kulayl xad dhaaf ah halka meelaha qaarna ay noqon lahaayeen qabow aan loo adkeysan karin, taasoo keenaysa in ugu dambeyn dhulka uu shilmo una ekaado midabka meeraha noo dhow ee Venus, iyo in sidoo kale ay qalalaan gabi ahaan ilaha biyaha yar ee noo soo haray sida webiyada iyo haraha biyaha macaan maalmo yar uun gudahood, taas oo sababaysa dhammaadka nolosha aadanaha iyo dhammaan noolaha kale. sanado yar uun kadib, dhulku wuxuu isku bedeli doonaa dhagax saxara ah oo aysan nolol ka jirin. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.